afurkan iyo casho sharaftan oo ay soo qaban qaabiyeen hoggaanka sare ee dalada midnimo oo kamid ah daladaha dhalinyaro ee hoostaga xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xisbiga wadani oo isugu jiray heer qaran iyo heer gobol iyo sidoo kale qaar kamid ah dhalinyarada sida weyn ugu ololeeya xisbiga mucaaradka ee wadani kulankan oo ujeedkiisu ah xog kala qaadashada iyo dardargelinta shaqada xisbiga ee gobolka Togdheer waxa uu horreynba ka hadlay maamulka sare ee dalada midnimo xubno ku hadlayay afka dalada Caynaan aqoon-yahan Cabdikariin Silaanyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee gobolka Togdheer xogaye ku xigeenka gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanay dhammaantood bogaadiyeen dadaalada ay wadaan dhalinyarada ku midaysan dalada midnimo ee gobolka Togdheer aad kuna kan soo ajibteen waa noo farxad sidoo kalena waxaan bogaadinayaa inaad kulamadan oo kale aad badisaan insha Allah maadaama oo magaraysa khilaafkii uu naga soo dhamaaday doorashadu inaynu kulamadan oo kale xoojino kulamada gobolka dhalinyarta sidoo kale halkan waxa jooga hablo xisbiga caawa ay ugu horeyso ku soo biiray iyagana waxaan doonayaa inay soo dhaweeyno insha Allah dalada midnimo markasta waxay xoojinaysaa isku xidhka xisbiga iyo dhalinyarta oo dhalinyarada kamidana waxaan rajaynayaa inaan intan imika in ka badan aan isku xidhnaano dhalinyarada kale inaga maqan ee aan imika joogina inaan inta in ka sii badan isku xidhnaano dhalinyaradu ay noqoto jiris og annaka Caynaan ahaan waa noo farxad waana noo karaamo ina maanta dhigayaga midnimo inagu casuunto waxaan rajaynaynaa insha Allah taala annakuna inaan casuuno taa iyo mid ka balaadan gobolkana in ka wada shaqeyno hawl weyn baa noo taala insha Allah xisbi ahaan iyo dalad ahaanba waxaan rajaynayaa insha Allah billahi kariim in aynu bilaawno campaign-keena xilli hore dhalinyarada iyo ururka midnimo dhammaan dhalinyarada u heegan inay guusha ka mira dhaliyaan iyo afaafreebka xisbigaba waxaan leeyahay warguul ayaan idinoo wada rajaynayaa dhammaanteen halkaas iyo meel ka sii sarreysa Caynaanku haynoo ahaado hilinkeenuna waa aqalka biyashiinahayaga iyo halkii tooshka siyaasadda ayuu baynu isku ognay insha Allah taala ugu horeyn ujeedka iyo muhiimadda kala jooga aan barta u nimi waa aqbalaada xawayaan dhalinyarta midnimo casuumadayna soo casuuntay dhalinyaro aad iyo aad mahadsantihiin waan naga aqbalay xawaya casuumadayni xawayaan wax weyn waa sameeyeen ruuxantii gobolka laba fooran baa xawayaan hadda ugu sita intaan daladahaan ogahay waxa weeyaan dhalinyarta la yiraahdo midnimo iyo dhalinyarta laha Caynaan xaqiiqatan labaduba waxa weeyaan sadax kuma maahada cadceeda shacabka lagu qarin kare wax fiican bay meel fiican ka wadaan waxaan leenahay ka dhalinyaro ahaan mar walba garabkiina oo labada daladoodba wax kasto oo nooga baahataana ka dhalinyaro ahaan mar walba diyaar baa u nahay waxa weeyaan sida horumarka u jeceshiin horumarkiina la jecelahay waxa weeyaan halka ka sii wada insha Allah bidmilaahi kariim waana hadaleed ma leeyahay kulli waxaan malanayaa caawa madaxweynaha xisbiga ee gobolkeena la joogtay heer qaranba waxa weeye iyagana mid walbaan oranaya insha Allah hadaleedmo gobolku uu isku xidhay maanta cid allaali cid naga awood badan ma jirto uma baahnayno waxa weeye madax salaxnayna waa inaka ugu sideena waxaanu baahanahay inaan awoodeena aynu sii xoojino inaynu xiriir qaano waliba dhanka dhalinyarada aynu waliba xooga sii saarno waxaynu ku jirnaa halgan isbedel doon marka inaynu halgankeena aynu ka caajisino aynu digin oo aynu diyaar garowno sida aynu soo saar lahayn madaxweyne cusub oo dalku maanta heerarka uu gaadhay dib uga soo celiya waana Cabdiraxmaan Ciro markii waxaan talaxumadii ugu horeysayna raacday waxayna raacday 2017 markaynu Cabdiraxmaan ka codaynay inuu soo codaynay martiqaadkan dhalinyarada sameysay midnimo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa mas'uuliyiinta xisbiga heer qaran iyo heer gobol ay u sameyseen dhammaan ka soo qayb galayaashuna way mahadsan yihiin ballankeenu waxa weeye insha Allah inaan u diyaar garowno buuqii iyo hadalkii iyo wixii waa dhamaadeen laakiin marka shaqoon baa loo baahan yahay in la shaqeeyo oo dadka xisbiga u codaynaya la diyaariyo baynu u baahanahay imika wixii la dhaliili jiray iyo wixii meelaha laga shubi jiray iyo dawladda toosinteedii iyo waxaas way soo laabmeen dawladda toosinayaana ma jirto dawlad wax loo sheegayo wax qabanaysaana ma jirto laakiin dadka waxaynu u fahansiinaynaa cidii wax qaban karaysa in xilka loo dhiibo annagu horena waanu aaminsanay in Cabdiraxmaan uu xilka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hanan karaayo maantana waa aaminsanahay oo maanaan bedelin mowqifkeegii dadkii fartooda aadayna waxaan leenahay insha Allah fartiina waa mahadin doontaan haddii Allah idin ka dhigo insha Allah tribka dambe farxad weyn bay noo tahay ka soo qayb galnaa caawa madashan quruxda badan ee runtii ay noo soo agaasimeen dhalinyarada midnimo
oo runtii aan odhan karo anigu intii aan gobolka joogay dhallinyaradaasi shaqadii ay nala qabteen cid nala qabatay baa yarayn oo runtii aan odhan karo waa baalasha uu ku duuro xisbiga gobol gaar ahaan gobolka Togdheer waxaanay taas muujinaysaa inay inaga fududayso culaysyo fara badan oo xagga maamulka ku dhici lahaa siyaasaddaana waxaa oday noogu ah gudoomiyaha xisbiga gobolka Togdheer mudane Axmed Afyare iyo gudoomiye ku-xigeenka waana runtii uu ku doonayno in dhalinyarada isbeddelkeeda iyo aragtideeda iyo awoodaheeda in lagu mideeyo si afkaarteeda iyo cududeeda iyo muruqeeda loogu mideeyo cududda xusbigu waa dhalinyarta waxa xilalka wada haysta halka fadhida ilaa aniga ku dhaw waa wada dhalinyar marka wuxuu xusbigu ku tusaysaa maadaama dhalinyarta xilal kala duwan oo heer qaran iyo heer gobol hayso sida ugu helan yahay xusbigu dhalinyartii taanis weyn bayna inoo tahay siyaasadii berigii hore odayaasha naga hortaagnaayeen in xusbigii wadani markiisii koowaad bay inoo baneeyeen tareenkii raacnayba waxaanu mahadnaqaynaa dalladan midnimo oo garatay inay macsuumadan isugu keento dadka xusbiga ku jira wadani heer qaran ilaa heer degmo ilaa heer gobol ilaa taageerayaal inay isugu keenaan xafladan keenay waynu mahadnaqaynaa waxaanu kaloo mahadnaqaynaa dalladihii kale oo caynaan aan ka xusayo halkan iga muuqato waxaan kaloo aad u xusaya oo salaamayayna dadkii imaka bishan ilaa 200 oo qof oo yiri xisbiyada ka soo tagay roganina baa loo yimi bacdal ramadaan baanu la ballanay laakiin hablaha waxay nasiib dheer yihiin 20kii ramadaan bay xafladii la kulmeen marka nasiib baa dheertiin adan waxaad ka codsanayaa yaanaan xisbiyada idinku burbureeyay halkan soo taagtaan oo marka halkan soo taagna shacabka loo tumo oo la arko hablaha wadani soo dhaweeya soo dhawaada hablaana waxa leeyahay xisbiga laba kala lahaa idinkii anagu isugu mid baa tihiin waynu u simanahay xisbigu waa xisbigiidii soo dhawaada Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan iyo Cabdirsaaq Baradho wararka telefishinka Horyaal magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer